madaxda xukuumadda talada haysa hoggaanka asxaabta siyaasadda madaxweyne ku-xigeenadii Somaliland ka soo arrimiyay ayaa xog waran ay si wada jir u siiyeen warbaahinta waxay si adag u garab istaageen in la difaaco qarannimada jamhuuriyadda Somaliland iyagoo shacbiga reer Somaliland ugu baaqay inay heegan u galaan sidii dalkooda ay uga difaaci lahaayeen cadawga soo weerara Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ayaa yiri maanta halkaan idinka cadaynaynaa in qaranka Somaliland aanu ku kala duwanayn ama ku kala qaybsanayn difaaca dalka iyo jiritaanka Somaliland iyo colaadda dadka walaalaha ah dhex martay ee ka socota gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn inaan lagu kala duwanayn oo madaxda qaranka halkan joogta kuwa hore u soo xukumayay iyo kuwa maanta joogaba halkan waxaan ka fariin u gudbinaa ummadda reer Somaliland shacabka gudaha iyo dibadba inaan loo dul qaadan karin waxa kale oo aad iyo halkan ka bogaadinaynaa ciidamada qaranka ee difaaca adag oo ah qaranka Somaliland aan leenahayna annagu ka Somaliland ahaan colaad diyaar uma nihin muddada 7 sanadood Somaliland wax ku soo noolayd haddii gudaheega tahay haddii jaar tahay wax kula soo noolayd nabad imikana waxaan adkeenaynaa inaan madawba nabad diyaar nahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ahna kusimaha gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa iyagoo midaysan ballan qaaday sida ay diyaar ugu yihiin difaacashada qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaan halkan maanta isku nimeynayno u quuskoyno dadka wax magaradka ah waxaan ka tusinaa in Somaliland midaysan tahay waxa anagu ku kala qaybsanay waxa weeye issues hoose laakiin markay noqoto danta qaranka ee difaaca qaranka waa lagu midaysan yahay dagaalkan socdaa maaha dagaal ay wado reer Garowe waa dagaal ay Soomaaliya wadaaway farmaajo iyo maamulkiisa xamar waxay ka dhigteen muddaantii sidii Somaliland loo baabin lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa baabiya waxaan leenahay Soomaaliya uma baahna maanta dagaal uma baahna nimanka yidhi tookar waxa weeye waxa ka tirsan tahay maamulka Garowe juqraafiga ma yaqaan iyo taariikhda waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya farmaajo kooxdiisa hadiyadii ay noo soo direen ee technical ahayd ay noogu soo tala galeen inaanu ku marno 15 May naga habsaantay waa idka ajiibna leena taangiga waa daga helnay jiishtideeshigi waa hayna waxa weeye Somaliland mar dagaal dooni mayso marnaba dagaal diyaar uma maamulka Puntland iyo dawladda Soomaaliya iyo Somaliland toona dagaal ku dhismi maayaan waxay ku dhismayaan nabad dagaalkan dagaal qabiil maaha dadka qaar ayaan loogu sawrin dagaal qabiil uu yahay dagaal qabiil maaha tukaraq iyo xuduudeena waxa difaacaya dadkii deegaanka u dhashay deegaanka dadkii lahaa ayaa u diyaara oo difaacaya inaguna ku taakuleynayna reer Laascaanood baa u dagaalamaya difaacaya reer Kutaraq baa u dagaalamaya reer Xudun baa u dagaalamaya reer Taleex baa u dagaalamaya reer Buuhood la u dagaalamaya Somaliland mar walba diyaar waxay u tahay inay iyadu difaacdo aanay dagaal qaadin waxaanu caalamkana ka rajaynaynaa in la xakameeyo nimanka soo duulaya Somaliland 27 sanadood ay jirtay waxay ku noolayd nabadgeliyo jaararkeedana doonaysay inay kula noolaato dad islaamaynu nahay anagu dooni mayno dagaal nabad baanu doonaynaa waxaanu diyaar u nahay inaanu dalkayga difaacno xuduudaha yaga inaanu difaacno baanu diyaar u nahay waxaanu hambalyo u diraynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee mar walba u taagan nabadda difaaca dalkiisa shacabka reer Somaliland yar iyo weyn waxa ku waajibayna isgarab taagaan ciidankooda waa ahlu janno ninka dalkiisa lagu soo doonto ee difaacaya Cabdiraxmaan Cali Faarax madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee jamhuuriyadda Somaliland ay yeelato iyo Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii afraad ee Somaliland Soomara ayaa tibaaxay bulshada reer Somaliland iyagoo midaysan ay difaacayaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland horumarkiisa iyo nabadiisaba waxaan ku raacsanahay talaabada ay qaadeen xisbiyada iyo dawladduba ee midnimada Somaliland si xoojinaysa waxay astaan u tahay dadkii ay ka yimaadeen iyo halkaasi ishaare u tahay oo tilmaan u tahay oo ay tusaysaa in marxaladaha qaarkood laga wada midoobo معارض محافظ نو يحكومات بوانو كم إذا يسنحي
difaaca qarannimada Somaliland dadka Somaliland wax loo sheegaya u gudbinaynaa arrintu inay halkaa marayso maantana loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto difaaca qarannimada arrinta Ceelaf Weyn iyo shaqaaqada ka taagan xukuumaddu tallaabooyinka ay qaaday baan ku raacsanahay waxaan leenahay waa intaasoo loogala sii dhawaado gacan bira oo adag oo waxa fadqalalada wada iyo warxumo tashiilka iyo ummadda masaakiinta ah dadka isku gubaya isku dilaya in la qabqabto oo muxuu ahaa sharciga la mariyo arrinkaa waa laga midaysan yahay laakiin mid baan u sheegayaa geeskan Afrika xuduudeeda waxa calaamadiyay Ingiriiskii ama isticmaalkii maanta haddii la isku qabto borders haddii la isku qabto xuduudo Somaliland waxay ku taagan tahay calaamadaha beriga la calaamadiyay oo ah tii uu Ingiriiskii maxamed uu inoo calaamadiyay ee dibadna beriga aanu kula shuraakownay ama aanu ugu tagnay tii Talyaaniga ninka doonaya inuu dhiig Soomaaliyeed sii daadiyo oo nin habeen jirin ummadeeduna hay isu tagto oo hamidowdo